shir jiraaday si wada jira u qabteen maayirka degmada Burco Maxamed Xirsi Axmed Maxamed Caasi maayir ku-xigeenka degmada Burco Suldaan Nuux Jaamac iyo xogayaha fulinta dawladda hoose degmada Burco Cismaan Maxamed Sheekh Cismaan Nuur ayaa si rasmi ah u shaaciyay in maalinta Khamiista oo ku beegan 18 bisha 12 2023 gudaha magaalada Burco laga fulin doono olole ballaaran oo nadaafadeed kaasi oo ah mid lagu nadiifin doono guud ahaanba magaalada Burco mas'uuliyiinta ugu sarreysa dawladda hoose degmada Burco waxay ugu baaqeen guud ahaanba bulshada degmada Burco in si wada jir ah looga wada qayb qaato ololahaasi nadaafadeed. Alxamdulillah maanta oo bishu tahay 26 bishii 12 2023 waxaan halkan ka iclaaminaynaa waxaan ku wargelinaynaa dhammaan dadweynaha iyaga reer Burco aan wax kasta ka kooban yihiin in la bilaabayo maalinta Khamiista aynu galayno qof kasto muwaadin oo Burco u dhashay yariyo weysaqayuhum wa kabiiruhum inaynu galayno olole ballaaran oo nadaafadda magaalada Burco ah goob kasta waa tegaynaa qashinka waa laga gurayaa dadka xaafadaha dumarka xaafadaha qashinada guriyaha hortooda iyagu hanoo sii diyaariyaan guri kasta hortiisa ama inta isku xigtaaba goob ha ku ururiso si dabadeedna gaarigu maalinta aan u soo marino u fududaato qashinkii marka dhammaan hay'adaha dawliga NGO-yada wasaaradda waxbarashada iskuulada iyo wax allaaliyo wixii ururada bulshada ah xaafadaha waaweyn ee ka koobanta magaalada Burco dadweynaha Burco dhammaan waxaanu ka codsanaynaa ku wargelinaynaa in ay nagala soo qayb galaan maalinta Khamiista oo ay bishu ku beegan tahay haddii Ilaahay raali ka noqdo 18 bisha 12 2023 dhammaanteen maalinta waxaynu wadanahay oo wada tafaxaydanahay in aynu iskacan qabanno maahmaha Soomaaliyeedna waxa tira gacmo wada jir bay wax ku gooyaan haddaan nalagala shaqeyn nadaafadda iyo horumarinta degmada dawladda hoose wax allaale waxay qaban kartaa kaligeed ma jirto waana hal bacaad lagu lisay maanta halkan waxaanu ka ilaaminaynaa maalin horena waan ilaaminay ku celinaynaa in maalintii aanu qabsanay ololaha nadaafadda magaalada Burco aynu dib u soo aynu nadiifinaynaa ilaamayso maalinta Khamiista 18 sida waxa uu sheegayna aanu ka rabno bulshada reer Burco inay gacan qabato ala shaqeyso maalinta qof waliba wixii awoodiisa ugu geeyo si magaalada aynu magaranaysa u nadiifin lahayn gacmo wada jir wax ku qabtaan magaalo kastaaba dadkeeda ayaa ka qayb qaata waa maalin campaign maalinta campaign-kaas dhamaado waa Khamiistaas oo kaliya dawladda hoose waajibkeedu waxa weeyaan inay maalmaha ku xigta ka dambeeyana aanay maalintaas oo kaliya ku joojinay ay wadaan si continuous ah maalin walba ah oo bil walba ah oo sanad walba ah aynu nadaafadda uga shaqeyno ay shaqadeeda tahay laakiin maanta waxaanu rabnaa si maadaama culays badan yimi maadaama in badan ay runtii dib u dhac ku yimi in maanta awood badan aan saarno isugu wada tagno ay markaa cududeena tusno inay waxaan iska dul qaadi karno taasaanu ka codsanaynaa taariikhda bulshada tahay ganacsatada tahay iskuulada tahay laamaha dawladda wasaaradaha iyo garanaysa gobolkaba ka wada qayb qaadano inta ugu yar xaafad kasta inta ugu yar ay sameyn kartaa hooyay gurigeeda horteedana inay nadiifiso oo bacaha iyo wax yaala meelaha yaala nadiifiyo meel isugu geeyaan baabuurtu way soconaysaa wado xaafad line laami inta way imanaysaa way maraysaa anaguna waan qorsheynay insha Allah bismillah kareem intaasaan ku soo gabagabaynayaa aanu gacanta isla qabsano reer Burco dhan inaan naga soo qayb gashaan campaign-ka aynu qaadayno ay ku qaadano mataqaana qashinka ama maxashiishka marka inta laga tago oo qof walbana ay mas'uuliyad ka saarmayso waxaanu ognahay nadaafad darradu dhibta badan ay nagu hayso waynu ognahay xanuunada soo noqonaya Burco soo noqonaya ognahay oo joogto bay noo noqday sanadkiiba mar dadka dhan xanuunsanayaan safmar ah waxaas waxa keenaya xanuunadaas ay ka keenayaan maaragtay qashinku waxay noqotay magaaladii qof dadkiina iska free noqdaan qof walba hortiisa wuxuu doono ku daadiyo wuxuu doono qashinkii gurigiisa ka soo baxay oo banaanka ku daadiyo marka waxaan doonaynaa inaynu wixii ka dambeeya awaamiir baa soo bixi doonta
qof waliba inuu qashinkiisa uu gurigiisa ku hayo ilaa inta loo imanayo marka labaadna biyaha la seedhinayo iyo qaababka waxaas oo dhan waxa ka soo bixi doona awaamir baa ka soo bixi doona ganaaxyo ka ratibmi doona waxaan doonaynaa uun imika tan ku koobnaano inaynu isu qabsano gacmaha maalintaas oo aan qofna inaga maqnaanin qof walibana koogu inta uu kari kara ugu yar inuu saa u sheegayo maaragtay suldaan gurigiisa hor xaadho oo qashinka intuu isku ururiyo hor dhigo gabadhidii maraysay ee imanaysay baa jirta waxaan doonaynaa halkan inaan ka wacyigelino ganacsatada ardayda iskuullada maxaan ku idhahdaaye ururada rayidka ah bulshada iyagoo dhamme inay qof walba goonidiisa isu xil saaro oo qofkii dhaqaale nagu kabi kara qofkii xooggiisa nagu kabi kara qofkii caqli nagu kabi kara inay 3 casho imaka hadhay 2 casho imaka hadhay ay noo yimaadaan oo ay nagala soo qayb galaan maaragtay kambeynkaan wadno oo ay noogu yimaadaan xafiisyada albaabada way furan yihiin nin waliba iyo inan waliba wixii ay contribute garayn karto arrinkaas aad iyo aad ba mahadsantihiin waa maxamed ibraahim british TV-ga qaranka Somaliland Burco.